khaladka koowaad ay sameeyaan waxaa waaye in wax walba yar iyo weynba ay ka walwalaan ay ka cabsadaan cunugii baa saan isku gadiyey waxaan ama khalad yahay wax yaroo waxbaa ka imaaday cunugii muu dharagay ma garanayso wax walba oo ama ha weynaado ama ha yaraado way ka walwalahayaan walaac ayuu ku yahay sababtoo ah khibrad ooma lahan oo hooyanimo mayn soo marin waa midda labaade waqtina mayn ku bixinin iyo juhdi oo maynan baranin oo baxthi maynan ku baranin sida waalidnimada maaragtay ilmaha sida loola dhaqmo midda labaad waa in canuga aynan u ogolaanin inuu xataa wax yar uu dhaha ama ooyo canuga hadduu wax yar saa isku gadiyo shanqaro way la soo boodaysaa way qaadi hadduu wax yar ooyo way la soo qaadi way boodaysaa way haynaysaa maantoo dhan isagii iyo ayadiiba way isku rafaadeen hooyooyin qaarkood waxay soo mareen 2 sano canugii uu marahayo canugana mar uu hurdamoogay inta kale in ama lahayo ama dhabta lagu hayo ma ogi uunan yeelin taana waxaa keentay canugii waxaan in la baray waxaa la rabaa canugu inuu ooyo keliya haddii uu gaajaysan yahay haddii uu bambas ku jiro saxaro uu ku jiro haddii uu xoogaa xanuunsan yahay ama haddii uu qabiisii waxa u baahan yahay oo kulayl iyo waxa uu dareemayo intaa wixii ka madax bannaan cunug waxaa la ogolaya 3 bilood oo ugu hore xoogaa oo hitaan wax la dhaho maaragtay colic inuu qabo oo calool xanuun yar uu yara qabo intaa ka saabsan cunugu caqli buu leeyahay inaad barto ma aha in mar walba la qaado oo lala soo boodo wax yarba midda saddexaad waxay isku khaldaan hooyooyinka cusub waxaa la dhaho diliqa iyo mataga matagu waa cillad weyn oo xanuun uu keeno oo u baahan attentionka dhakhtarka iyo cunuga in la daaweeyo laakiin spit upka ama waxaa la dhaho diliqa waa wax iska yaroo cunugu mar walba uu caano cababa iskaga imaado iska caadi oo normal taana marka in la kala ogaaday u baahan tahay midda afraad oo muhiimka ayadana waxaa waaye hooyooyinka cusub badanaa ma garanayaan cunuga sida looga daacsiiyo cunug mar walbuu naaska nuugo wuxuu u baahan yahay in laga daaciyo see looga daaciya siyaalo badan ayaa jira laakiin midda ugu muhiimsan oo ugu badan waxaa waaye in canugii saa loo saaro feera ama meeshan dhabta la saaro ama halkan garabka la saaro kadibna maaragtay dhabarka laga dharbaaxo ilaa uu ka daacsanayo midda shanaada muhiimka ee khaladaadka ay sameeyaan waxaa ka mid ah waalidiinta qaarkood ee ku cusuban inay aynan culays saarin cunugii oo qandhaysan qandhada sidiisaba weliba ilmaha yaryar wixii 6 bilood ka yar ah qandhadu waa calaamad tusaysa cunugaasi inuu xanuunsan yahay aadna way u nugul yihiin waxayna u baahan tahay in dhakhtar loo geeyo dhakhtar carruur loo geeyo oo arrinta ayada la ogaado oo la baaro wax cilada keenaysa midda lixaad oo khaladaadka aan isleeyahay khaladaad iyada ugu muhiimsan bay ku jirtaa ay hooyooyinka cusub sameeyaan waxaa waaye inay dayacaan zawjkoodii ama ninkoodii inay dayacaan hooyadan cusub cunugii bay ku mashquulaysaa iyadii baa daalaysa wayba dayacaysaa ninka waxaa laga yaabaa xaggii gogashii gurigii xagga cuntadii asagii oo dhan iyo attentionkiisa wixii dhan waa la iska hilmaamay cunugia lagu mashquulay asagana meel uu iskaga dayacan yahay oo laga yaabo hawshaas inay maaragtay ay guriga ay u keento wada joogii iyo ay dumiso guriga dhici kartaa marka taasna laga taxadaro midda toddobaadka oo muhiimka waxaa waaye in waalidka cusuban ama waalidka hooyadii aabihii ay ku kormurmaan cunugii yaraa hortiisa muranku cunugaa yar xataa hadduu 1 maalin ama 2 maalin dhalan yahay wuu fahmahayaa wixii muranka iyo wixii kale iyo doodaas wuu kala fahmahayaa maskaxdiisana ta'thiir iyo raad ay ku yeelaysaa haddii aad wax noocaas ama qaylo ay dhacayso waa in cunuga laga fogeeyo oo qolka lagu soo hadlaa taana laga taxadaraa cunuga hadduu yar yahay ama uunan hadlaynin maaha inuunan waxan fahmaynin khaladka 7aad ama khaladka 8aad baan ku wada cafwan badanaa ay sameeyaan hooyooyinka cusub waxaa waaye in wax walba oo dadka ay u sheegaan ay iska aaminaan oo noqoto nin bukoo boqol ku talisay tanaa ku imaani canuga caanahana la siiyaa mayanaana la siiyaa noocana la siiyaa maanta oo dhan aad wareerto cunugina aad wareeriso waxan baa la siiyaa waxyaalo badan oo xataa cunuga noloshiisa khatar ku noqon kara marka taa waxaa looga taxadari karaa in waalidku markuuba waalidnimo uu guurka uu galahayo ama markuu ur qaado inuu waqti ku bixiyo juhdi ku bixiyo uu barto
maanta aalad baa jirta internetkii baa jira wixii oo dhan laga baran karaa dhakhaatiir xataa haddaad af English iyo af Carabi aad garanaynin Soomaali oo annagaan ka midnahay oo wacyigelin noocaasa bixiyaa jiraan kuwaas inaad intaad raadiso aad wax ka sii barataa muhiima khaladka sagaalaad oo hooyooyinka cusub ay sameeyaan waxaa ka mid ah inayn nasanin cunugu ilmaha bilooyinka ugu hore habeenkii way u badan yihiin inay ooyaan habeenkii inay soo jeedaan maalinta ay seexdaan hooyadii habeenkii oo dhan bay soo jeedaa maalintiina intay waqtiga yar ee cunugu u hurdaya iyadana ay yara seexan lahayd waxay ku mashquulsan tahay gurigii marka taa waa in laga taxadaro see looga taxadari karaa number 10 oo khaladka ay sameeyaan waxay tahay oo iyadana taas ka caawinaysa inaynan in la caawiyo aynan dalbanin waxaa la rabaa qofku markuu uur yahay uu dhow yahayba inuu kasii baaraandago sii qorsheeyo markaan dhalo dadkii caawin lahaa ma guriga hooyada baan aadahaya ama qof shaqaala ay imaanaysa ama qof aan qaraabano ay caawinaysaa joogta taas waa inaad ka taxadartaa sababtoo ah waa u baahan tahay caawin fara badan aad u baahan tahay waxyaalo fara badan ay u baahan tahay that's why khatarta ka dhacda haddii hooyada cusuban ama hooyada marka aan la caawinin marka dambe inay shoog ku dhufato maskaxda ku dhufataa dhici karta iyadiba nafsadeeda ay khatar ay gasho iska badaa cunugeedii iyo ninkeeda ay wuxu tartee marka waxaan idinku boorinayaa hooyooyinka cusub in hawshintaasi laga taxadaro ama kuwa hooyo noqon doonaan insha allah ay ka taxadaraan oo lasii waxbarto oo cilmigu muhiim waaye lasii barto wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu